أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله من رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله تعالى waxaan bilaabaneynaa barnaamij aanu kaga hadlayno axkaamta salaada, kaasoo aanu u diyaarinay ama aanu ka soo jeedinayno haddii ayba yidhaahdo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Somali National TV. barnaamijkeenu marka waxaanu ka bilaabaynaa maanta haddii Ilaahay yiraahdo guud ahaan waxaanu ka hadli doonaa axkaamta salaada. maxaa yeelay salaadu waa rukniga koobaad ee min arkaan islaam weeye, muxuu ahaayey rukniga labaad bacda shahaadateynka, marka waa muhim weeye. sidaa darteed marka waxaan rabnaa inaynu salaada aan barano, maxaa yeelay akhdaa fara badan iyo gafaf fara badan ayaa markaad masaajidada aad joogto, marka aad magaranaysaa dad la tukanayso, yaa waxaan arkaynaa gafaf aada u fara badan oo magaranaysaa salaadii xumeeyo oo la sameeyo. sidaa darteed baa waxaynu insha allahu tacaala programkan aynu ka hadli doonaa salaada iyo sida loo tukado, axkaamteeda, waajibaadkeeda, sunnooyinkeeda, muxuu ahaayey xabaadka, waxyaalahaas iyo wixii la midkaa baynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala. haddaba intaynaan salaada u gelin ka hor baa waxaa muhiim ah qofku in uu yahay qof daahira oo nadiif ah. qof daahira oo nadiifa ayaa muhiima inuu yahay. marka daahir waxaa laga wadaa inuu nadiif ka yahay nijaas, jirkiisu inuu nijaas usan lahayn, dharkiisu inuusan nijaas lahayn, meesha uu ku tukanaya inaysan nijaas ahayn. intaa markii la helo ayaa waxaa laga rabaa qofka inuu haddana la yimaado weyso waxa loo yaqaano, oo ah salaada salaada macnaha bilowgeedii u ah. haddii marka weysadii la waayo oo aan weyse la helin, salaad la heli maayo. laakiin marka hore weysadu waajib ma ah. inaad weysaysataa marka hore waajib ma ah, laakiin waxay noqonaysaa si aad salaad u tukatid inaad weysatid wa. marka salaad rabto inaad tukatid bay waxay noqonaysaa weysadu waajib. marka meesha la yidhaahdo weeye maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib aan lahaa. waxa waajibkii uusan yani una taam noqonaynin ilaa isaga la sameeyo mooye ayaa waajib uu noqonaya. marka salaada ma tukan kartid ilaa aad weyso qabto. sidaa darteed marka weysadu ayaan ka bilaabaynaa haddii ayba yidhaahdo, oo muhiimadaas ama ahmiyadaas ayay leedahay. wudu macnaheeda markaan carabi aan fiirino, kutubta waad aragteen yaryarka iyo kuwa weyn baabulwudu baa lagu qoraa. marka waxaa la dhahaa baabulwudu'i, wududa weysada baabkeedii wey, meeshii lagu bilaabayay. marka maxaad dhahaysaa baabulwudu waxaa weeye wowga in la godo wey, wudu in la yihahdo wey. haddii la yidhaahdo wudu haddii la yidhaahdo oo wowga la godo macno yeelanaysaa. haddii wadu la dhahana macno kale yeelanaysaa. marka innaga maxaan u baahannahay alwudu, wowga oo la godo luqa alcarabiya maxay noqonaysaa? wudu waa ficilkii weysaday noqonaysaa. laakiin wadu haddii la yidhaahdo weysadii laftirkeeda noqonaysaa biyihii lagu weysaysanayay bay noqonaysaa. laba kale macno yeelan doonaa. wudu macnaheedu markii lasii tafsiirana waxaa weeye waa annadaara, yani iftitaan, qofku inuu ifayo oo ma garanaysaa uu nadiif yahay iyay kutusaysaa. muxuu qofku nadiif ka noqon markuu weysaysanayo? laba arrimood buu nadiif ka noqonaya. waa midda ku horeysa markuu biyaha qaato oo wejiga mariyo oo muxuu ahaye oo madaxa mariyo oo lugaha dhaqo oo gacmaha u dhaqo, qofkaasi wuxuu noqonayaa qof nadiif ah oo aan wasakh lahayn. waad aragteen wasakhaynu u jeedno yaa kaa baxaysa marka qofkii ka imanaysa wasakhdu iska dhaqaya. waa kow. macnaha kale ee ay keenaysa waxaa weeye in uu qofku uu noqdo
كن نظيف كأه محوك نظيف كأهنيا من الذنوب لأنه حي مركا ويسيستيد مركا ويسيدا أد سمينيسيد فعل كستو أد سمينيسيد ذنوبته waxay kaaga dhacayaan biyaha raacayaan qataraadka biyaha ay u dhacayaan oo kala ay u dhacayaan marka saas labada jeerba ayad ka noqonaysaa marka waysada markaad bilaabaysay waxba asal ah waxa asalka ah ee laga rabo mar walba waxa weeye in la timaado niyo inaad niyeysato macnaha inaad tiraahdo nuwaytu faradul laakiin waxa laga rabaa inaad niyada aad gelisid in aad weysaysanaysid weeyaan ya in aad weysaysanaysid inaad niyad gelisid oo maskaxda ku qabatid ayaa laga rabaa marka niyadu waxa weeye waa qasab weey laana cibaadooyinka kale oo dhan la sameeyo niyada weey for example hadii aad adiga soo daasho oo suuqa tagto oo soo warwareegto oo soo rafaado oo aad masaajidka soo gasho aad meesha biyaha tagto aad gacmaha dhaqato oo sanka biyaha marsato oo wajiga aad dhaqdo oo lugaha dhaqdo oo aad wax dhan samayso laakiin aadan niyoonin inaad weysaysanaysid weysamay ku noqonaysaa kuma noqonayso waa inaad soo bilow hadaad dabcan inaad salaad tukatid adoo intaa sameeyey haddana waxaa laga rabaa inaad weyso aad la timaado oo aad weysaysato sidaa darteed marka niyadu waxa weeye waxa kala saaraya weeye ficilka caadiga aad u samaynaysid iyo kan cibaadada aad u samaynaysid marka maxaa la yiraahdaa waa niyada ayaa waxay tahay asal maxaa u daliil waxa u daliil xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam kulligiin aad garanaysaa inama al-a'malu binniyat amalada oo dhan waxay ku xiran yihiin ama asal u ah niyada al-umuru bimaqasidiha umurta oo dhan wax kasta la sameeyo waxa asal u ah maqasida iyo waxa ujeedada loo leeyahay baa qasab ah inta markuu qofku la niyada markaad waxa ku xiga wax la yiraahdo inaad ka bilowdo bismillah marka shay bilaabaysid waxaad ka bilaabaysaa bismillah baad bilaabaysaa oo weysidii aad ku bilaabaysaa afkaad ka dhacaysaa yani bismillah waa qawli weeyaan wax ficil aad u qabanaysaa laakiin afka ayaa waxaad ka leedahay bismillah marka inaad bismillah dhahdaayi waajib ma aha waa sunna oo haddaadan bismillah dhihin weysidaada way ku jirtaa laakiin waa sunno wanaagsan oo ay tahay in la yimaado kow maxaan soo sheegnay marka laba arrimood oo ah maxaan soo sheegnay midda koowaad waxa weeye muxuu ahaa niyadii iyo in la yiraahdo bismillah midda kale ee ku xigta waxa weeye in gacmaha la dhaqo labada gacmaha in la dhaqo oo ma garanaysaa la nadiifiyo way gacmaha gaar ahaan markaad weel intaad ka shubanaysid tad macnaha intaad ku shubanaysid aad rabto inaad weelka isticmaasho oo rabto inaad gacanta darsatid waxay tahay qasab inaad dhaqdid okay marka waxa weeye inaad weelka intaad ku soo shubatid aad gacmaha dhaqatid oo labada gacmood in aad dhaqdid ayaa iyaguna waxay ka mid tahay waxa laga rabo weeyaan kow waxa kale ku xiga waxaad noqonaysaa markaad gacmihii aad dhaqdid oo aad faraha dhex gelinaysaa biyaad qaadaysaa waxaa laga rabaa inaad faraha inaad gaarsiisid meel walba inaad biyaha ku shubtid kaliya oo ka yar qoyanaadaan lama rabo hal biyaha markaad tuubada aad u dhiganaysid si fiican ugu shubatid gacmaha si fiican u marmarisid oo maaragtay gacani si fiican inaad u gaarsiito ayaa muhiim ah inta markaad aad samayso oo ilaa 3 jeer kow laba 3 jeer baad biyaha qaadanaysaa ilaa 3 jeer baad biyaha ku celinaysaa oo wajigii ku dhaqaysaa marka kadib baa waxaad samaynaysaa thumma waxa ku xiga waxa la yiraahdo luqluqashada waad garanaysaan biyaad ku shubanaysaa oo qaadaysaa markaas waxaad sii raacinaysaa sandaarsi sankaad biyaha gelinaysaa okay marka biyaha marka sanka gelisid hadii aad soomanayn waad xogo waad ku gaarsiin kartaa laakiin haddaad sooman tahay lama ogolo in biyihii inaad mubaalaqa inaad gaarsiiso oo sii badiso lama ogolo yani waxaad rabaa inaad in aan soonka ka jabinaynin inaad gaarsiisid marka ruuniga waxa laga arinta kale laga rabo waxay tahay in aad qaadid biyo oo aad sanka ku luqluqatid aad sanka ku daaratid kadibna maxaad samaynaysaa mid kale la socoto ah iska soo daadinta ya al-istinshaqu waxa la yiraahdaa al-madmada yani luqluqasho iyo istinshaq iyo istinthar baa la yiraahdaa inaad sanka afka geliso oo aad ku luqluqato oo kadibna aad soo daadiso laba nooc marka u samayn kartaa inaad biyaha qaadato oo luqluqato 3 jeer iska daadiso yeeli kartaa kadibna
aad istinshaaq intaad samaysa soo daayso saddex jeer ayagana saa yeesho waad yeeli kartaa inaad hal mar intaad biyaha isla qaado saa tiraahdo isaga gelisid aad soo daaysana waad yeeli kartaa arrintaas macada yani waa sax waa soma waa waadix inaad macnaha sanka intaad gelisid aad afkaad gelinaysa waa luqluqanaysaa sankay biyihiid gelinaysaa waad ka soo daadinaysaa taasa iyaduna waxay tahay rugni arrinta kale ee la iska rabo maxaa yeelay nabigana sal alla alay wasalam sidaa ayuu sameeyey xadiid uu warinayo cabdullaahi ibnu zayd nabigu ka warinaya sal alla alay wasalam tamadmada rasuulka ilaahay wuu luqluqday wastanshaqa halaathan bihalaathi ghurafaatin muttafaqun calayhi 3 jeer buu nabigu sal alla alay wasalam ayuu ku luqluqday oo uu istinshaaqsaday oo soo yeelay marka waxaa laga rabaa 3 jeer inaad gelisid ayaa yacni sida fiican ee wanaagsan ilaa 3 jeer inaad gaarsiisid waay intaa markuu qofku uu sameeyo baa waxaa ku xiga waa garanaynaa waxa meesha kale ku xigta waxaa weeye waa wejigii in la dhaqo wejigii in la dhaqo wejigaad marinaysaa wejigu xagee buu ka bilowdaa xaguusuu ku dhammaadaa wejiga waxaa weeye waxaad u qaadanaysaa biyaad qaadanaysaa wejigoo dhan baad yaad wada gaarsiinaysaa weji waxaa la yidhaahdaa min manbati shacri meesha timuhu ay ka bilowdaan ilaa muntaha diqni ilaa garhka meesha uu ku dhammaado okay wa min dhegta geeskeeda laga soo bilaabo ilaa shaxmat اludun yani dhegta geeskeedan ilaa geeskeeda kale intaasa waxaa la yihahdaa weji looyaan laakiin waxaad arkaysaa marar badan dad weysaysanaya oo saas dhaha inta wejiga saa wejiga u marinayaan saxna maha oo arrin yani aan khalad ah oo ay tahay in ay gaarhaan wejiga in la gaarsiiyo dhammaantiis haddii aadan dhammaystirin salaadaadii ama weysadaadii ya naaqis weeye oo ma aha makaamil maaha marka waxaa la iska rabaa in iyadana la geeyo min aluduni ila aludun cardan yani dhanka ilaa dhankaas ilaa halkaa in la geeyo oo wejiga weysada la wada mariyo si loo gaarsiiyo marka maxaana looga dayanaya arrintaa nabiga ayaa arrintaa laga wariyey cali baana wariyey radia allahu canhu inuu nabigu uu sidaa u yeelo 3 jeer u marmarinayey muxuu ahay wejigana uu sidaa u gaarsiinayay geeskaa ilaa geeskaa uu gaarsiinayay marka saasaa la rabaa marka in weysada iyadana loogu xeel dheeraado oo loo gaarsiiyo saas weeye haddana maxaa iyadana ku xigta wejiga markaad dhaqaysid haddaa maxaan ku nihi farahaad dhex gelgelinaysaa oo waxaad gaarsiinaysaa biyaha meeshii la rabay inaad gaarsiiso haddana waxaa lagaa rabaa wejiga garhka haddaad leedahay haddaad gar weyn leedahay ya waxaa lagaa rabaa yukhali inaad dhex gelgeliso isagana haddaad gar leedahay saa u geliso oo meeshii la gaarsiiyo haddii aadan gar lahayn oo timahaaga iyo garhka uunan ka muuqanin ama sidiino kale aadan gar lahayn sidii wejiga loo dhaqaya caadiga bad biyaha meel walba ayaad u gaarsiinaysaan marka sidaasaa isagana ayaa la samaynayaa maxaa la samaynayaa baan idhi markii wejiga la dhaqayo xagee weeye baan wejiga intuu ka kooban yahay yaa sheegi kara wejiga waxuu ka kooban yahay maxaan idhi nacam jamaal macnaha wejiga wuxuu ka kooban yahay waxaa laga soo bilaabaya inta nacam ilaa barta garka ku dhamaado ilaa muntaha diqni halkan kor u yaqaan halka hey sax ilaa halkaas dhanka kalena dhegta meesha xulubna sarta ilaa dhanka masha allah saas wey macnaha marka laakiin la weysaysanaya maxaa la samayn waxaa la wada gaarsiinayaa dhinac oo dhan in la gaarsiiyo ayaa la iska rabaa okay kadib markaan intaa ka gudubnay ee wejigii aan soo dhaafnay maxaa ku xiga oon samaynaynaa sida weysada caadiga aan samayn jirnay maxaa ku xigi jiray waxaa ku xigay gacantaa ku jirtay ghaslu yadayni labada gacmood in la dhaqo ayaa iyaduna ayaa ku xigta marka yadeynka waxaa laga wadaa ila almaraafiqi ilaa halkaas meeshaas dhudhunka meeshan ya elbowga ayaa la gaarsiinayaa oo si fiican in loo gaarsiiya lama ogol marka inaad intaa keliya inaad dhaqdid dad badan waxaa arkaysa inta saas dhahaan meelaha iska banaan tahay xagga iska banaan tahay oo aan gaarsiinaynin Abu Hurayra radiyallahu anhu isagu uu dheerayn jiray wuxuu dhihi jiray in uu intii uu dhihi lahaa magaran intuu wax ka tagi lahaa ziyaado ku dari jiray marka asbiq alwudu abu dhihi jiray xadiis mudraj ah oo mar walba macnaha uu soo dhaxgaliyo uu leeyahay asbiq alwudu weysada dheereeyo oo gaarsiiya meeshii meelan ka hayno in la dhaafiya marka saas waxaa la rabaa in loo sameeyo muxuu ahaye weysada loo sameeyo marka isagana maxaa la sameynayaa
إلهي القرآن وحو كله وأيديكم إلى المرافق سلوا أيديكم وأرجلكم سمعين آيات القرآن كساسين إلى المرافق إلا أتكجع الآن محو هاي ماشي لابتانك هالكن مرفق هالكاس عليه هذا أوكي إلا هالكاس لدن كأ أيال اللي جسوا جالسين وحا كحجة أو مركها كحجة وحا اللي هذا المسح بالرأس مع الأذنين إن معناها الإسرائيلية هذانا مدحة إن مسحه دجاهنا للراعيه سيلا مسحيا حدي هرت اللي سيد كجوديسة عاديا أدوس كجوديسة وحويه تسمين كرتها إن تبي وأدمرين كرتها لكن سيد في عن وهو ناقصن وحويه سيد والنبي صلى الله عليه وسلم صحابة كسر وريان بعوحوا يهاي إن أو لا سمايا وامسحوا برؤوسكم بالين يعني مدحينا مسحة مركا markii la tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu weysiisan jiray markaas waxa la yiri famasaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar nabiga ilaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu masaxay madaxiisa labadiisa gacmood buu ku masaxay labada gacmood fa aqbala bihima wa adbara bimaana markuu la masaxay waxa weeye biyihi baad soo qaadanaysaa ku shubatay gacantaadii oo qoyan yaa waxaad sameynaysaa ku masaxay taas oo u marinaysaa waxa geenaysaa fa aqbala xagaasad geenaysaa meesha u dambaysaad geenaysaa qadaadka fa adbarahu markaas hadana soo celiye ya macnaha xasaanad ugu haynaysaa saas u soo celinaysaa hadana markaas maxaad ku sameynaysaa biyihii oo wali dhigihii ku leh ayaa iyagana gelinaysaa saasaad leedahay ilaa hoos baad halkaas uga soo gelinaysaa markaas saasaad weysadaadii yaad u soo marinaysaa maxaad sameynaysaa biyaad qaadanaysaa madaxaad marinaysaa gadaal baad geynaysaa haddana waad soo celinaysaa si aad masax quman ay u noqoto labadii dhagood biyihii kugu jiray ayaad gelinaysaa waxaa kaloo kuu bannaan ood samayn kartaa inaad soo qaadato ood madaxa caadi u masaxdo ood samayn kartaa inaad biyo kale intaad qaadatid biyo kale oo soo qaadatid kuwa dhagaa ugu talagashay oo gooni ah ayagana waad samayn kartaa oodan kuwa kaliya aadan ku ekaanin marka arrimahaasoo dhan baa adiga ku bannaan oo aad samayn kartaa markaad intaa ka gudubto waxaad u gudbaysaa wax la yidhaahdo lugaha oo la dhaqo waa wax routine oo maalin walba samayno laakiin maxaa uga jeedadu ay tahay waxa weeye inaan gaadhno qaabkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u sameyn jiray saxaabadu ay soo sheegeen ee saxdayd inaynu helo saan hore u sheegay waxaan aragnaa maalin walba dad weysaysanaya oo sida hadda aan u tilmaamayno si aan ahayn u weysaysanaya masaajidada markaad fiirisid waxaa arkaysaa dad biyaha inta iskaga shubaan aan madaxa si fiican u marinaynin gacmihii ila almaraafiqi hadda aan sheegaynay aan gaarsiinaynin marka tan kale waxaa weeye uma midda ku xigta waxaa weeye ghaslu rijlayni labada lugood oo la dhaqo labada lugood oo la dhaqo ila alkacbayni ilaa iyo aanqowga halkiisa meesha ay laftu ku taalo weeye intaasaa waajiba oo la rabaa in la gaarsiiyo laakiin inta ka koreysa waa sunno weeye macnaha haddaad gaarsiiso ya waxaa loo baahan yahay inaad in la gaarsiiya iyadana loo baahan yahay marka ilaahay wuxuu yidhi waarjulakum ila alkacbayni ilaa kacbaynka laga gaadho dhaqa buu ilaahay qur-aanka ku yidhi nabiguna sala allahu calay wasalam wuu weysaystay markaasuu faghasala rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay muttafaqun calayhi xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa isagana wariyey markaasna wuxuu ku tusayaa in meesha la iska rabo in la geeyo nabigu sala allahu calay wasalam ficilkiisii uu sameeyeyna ayaduna way fasiraysaa ayadaas ma garanaysaa sida uu ila alkacbayna nabiguna waxaa kaloo yidhi sala allahu calay wasalam xadiid kale uu ku yidhi waylun lilacqaabi min annaari yacni waadi naar wuxuu u sugnaaday dadka cirbahooda aan dhaqin markay macnaha salaada ay tukanayaan ay weysanayaan bal u fiirso haddaad soo weysisatay laakiin maadan dhaqin cirbihii maadan dhaqin okay ama kacbaynkii aan qawyada inta ka hooseysa meel ka mid a baad ka tagtay macnaha salaadaadii iyo weysadaadii taa ma aha marka waxaa loo baahan yahay mar kale inaad saxdo oo aad dib ugu noqotaa loo baahan yahay marka aad gacmaha lugaha dhaqaysid laftirkooda waxaa lagaa rabaa in aad faraha dhexgeliso hadda maxaan soo sheegnay markaa faraha dhaqaysay maxaan nidhi faraha dhexgelinaysa saas u dhexgelinaysa soo maha hadda markaad faraha dhaqaysid waxaa muhiima inaad farahaaga gacmaha faraha kale dhexgeliso haddii kale
weysadii maada dhamaystirin marka waxaa lagaa rabaa inaad dhexgelisid faraha inaad faraha dhexgelisid okay sidaasaa lagaa rabaa inaad sameyno maxaa yeelay nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi asbiqu lwuduu'a weysada dheereeya oo gaadhsiiya meel sax ah wakhalil ilasaabica farahana isdhexgeliya oo sidaas maaragtay takhliil u sameeya waana xadiid saxiixa sida maaragtay xadiiska hadda aan sheegayno intaa markuu qofku sameeyo muxuu sameeyey markaa intaasi waa samary ama weysadii oo bilowgii ilaa dhammaadkii dhamaystiran waay waa weysadii oo macnaha kooban maxaa yeeley waxaan rabnaa inaan salaad tukano salaadda markaan rabno inaan tukanana waxaa qasaba inaan weyse la nimaadno baan idhi weysadaasina waa inay tahay weyse sax ah oo sidii laga rabay ahaato intaa qofku markuu sameeyo oo uu afcaasha uu soo sameeyo weysada uu soo dhammaystiro baa waxaa laga rabaa marka u dambeysa in uu yidhaahdo alfaad ama kelimooyin inuu yidhaahdo oo ah nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay xadiidu cumar bn khadaab uu warinaya wuxuu leeyahay wuxuu yihi nabigu man tawada'a qofkii weysaysta fa axsana alwuduu'a weysadana wanaajiya weyse fiican oo qurux badan qofkii weysaysta inta weysaysto weyse qurux badan qofkii weysaystaa huma qaala markaa kadib yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu qofkii intaa dhaha fataxa allahu lahu ilaahay wuxuu u furaa abwaaba aljannati athamaaniya 8 janno ilaahay yuu u furaa qofkii intaa dhaha yadkhulu min ayiha shaaa marka qofku wuxuu ka gelayaa meel mid alla miduu u rabo 8 janno miduu uu rabo ayuu ka gelayaa marka bal u fiirso waxaa isweydiin leh inagu ma samaynaa wey musalsalkaa sida ay qaabka u tahay bismi illaahi ma ka bilowna niyama la nimaadnaa bismi illahi ma ka sameynaa wejiga macnaha sandaarsi iyo istinshaaqi istinhaar ma sameynaa wejiga ma dhaqnaa muxuu ahayey gacmihii ma dhaqnaa sidaas yani sidii laga rabay ma u dhaqnaa oo qaabkii ay marka kadibna ducada ma la nimaadnaa qofkii intaa la yimaada maxaa la yidhi marka muxuu noqonayaa jannada ayuu gelayaa waana jannadiibuu macnaha ayuu qofkaas ayuu in sha allahu tacaala helayaa sida uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi okay waxaan rabnaa inaan ogaano wixii aan soo sheegaynay imisaa waajib ahayd imisaase sunno ahayd waxbaan soo akrinay waxaan soo akrinay imisaa waajiba imisaana sunno ah saasaan u baahanay inaan ogaano ilaa inaan iska akrinay keliya wax qiimo ama macno ama samaynayso waxaa weeye waajibka waxa ah ee ugu horeeya waxaa weeye anniya niyada ayaa waxaan idhi ayaa waajib ayaa waan ku idhi ya maxaa yeelay maxaa u daliilah xadiidkii cumar ibn khadaab radi allahu canhu oo ahaa inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa xadiidka aan naqaano weye ko maxaa waajibahoo kale waxaa waajib ah in weysadii inta aan soo sheegaynay mid walba in mar la dhaqo waajib waa u fiirsada inaad 2 dhaqdo iyo 3 dhacdo waa sunno iyo iman doontaa laakiin waxaa waajib ah inihii aan sheegaynay ee weysadii musalsalka aan usoo sheegnay in la mariyo mid walba mar yacni mar in magaray ayaa waxay keenaysaa ayaa waajib ah waxaa waajib ah oo iyaduna qasab ah masxu ra'si in madaxa asna la masaxo oo walow ay dadka culimada qaar ay leeyihiin bacduhu baa la masixi karaa qaarna ay leeyihiin kulluhu baa la masixi karaa laakiin waajibaadku ka mid yahay ay tahay in la masaxo waxaa ka mid a waxyaalaha waajibka oo hadda aan sheegayna waxaa ka mid a tartiib waxaa laga wadaa qaabka ay u kala socdaan in loo tartiibiyo waajibaadku ka mid yahay haddaad tirahdid ka warran weysana lugahan kasoo bilaabaya meeshaad gacmaha ka dhiqi lahayd halkaad soo mari lahayd haddaad tiraha ka warran lugahan kasoo bilaabaya tartiib macna waxaa laga wadaa in saas loo kala tartiibiyaa loo jeedaa waxaa la yidhaha almuwaalaatu in la xidhiiriyo oo haddii aad maalan oo kale inaad hadda intaad weysaysato aad tidhaahdo gacmahan dhaqanayaa waa weysaysanaya baa tidhi waa soo fadhiisatay gacmaha dhaqatay wejigaa dhaqday waa iska tagtay magaalada iska aaday oo soo noqotay waxaad tidhi intii kalena dhamaystiraya laga yeeli maayo yani waxaa lagaa rabaa iyadana in tartiibkaas ay u socdaan okay saasaa la rabaa yaa ii sheegaya waajibaadkii aan sheegnay mid ka mid a
first one waa النية midda ugu horeysa waxa weeye النية wey waa sax wey yaa mid kale ku dari kara mid muxuu ahaa adii weysada ay bilaabtay markaas waxyaalaha waajibaadka dhowr shay baan soo sheegay hadda dhowrkii shay aan sheegay waajibaadkii mid ka mid ah haddaad xusitid sheeg niyadu wuu sheegay Yonis mid markaa weysaysanaysid example gacanta marasay markaad suuqa aatay okay ha muwalaatu isku xidhiidhintii baa laga qasaba inay jirto meesha ina finish off garaysid waa halkii mar sax waa haye insha Allah hal kale ayaa ku dari kara okay haddii aad daydan xusanin waa in akiiba hal jeer dhaqdid in mid walba mar la dhaqo waajibaadkii ka mid tahay okay hal mar in la dhaqo ma sha Allah jazakumullah khair si fiican baad uga jawaabteen waxyaalaha waxaan rabnaa aan taabanaynaa sunnooyinka ka mid ah weysada waxyaalaha sunnooyinka waxna waa waajib waxna waa sunnooyin soo ma inaan dhihin ya waxaa ka mid ah sunnooyinka waxaa ka mid ah ghaslul kafayni labada gacmood in la dhaqo waajib ma aha laakiin waa sunno wanaagsan oo ficli ah oo la sameeyey marka waa in la sameeyo weeyaan marka sunnooyinka ayay ka mid tahay waxaa kula mid ah almubaalaqatu fi lmadmadati walistinshaaq sandaarsiga iyo quluqluqadka oo si zaa'ida loo luqluqdo yani ilaa dhowr jeer lagu celceliyo yani ma aha yani waa sunnooyinka ka mid tahay ya markii hal mar laba sameeyo maxaa waaye waa waajib bay kii waaye soo ma laakiin in la badiyo waxaa ka mid ah sunnooyinka bay ka mid tahay baad dhahanaysaa soo ma haye sunnaday ka mid tahay waxaa ka mid ah oo sunnooyinkii ka mid ah takhliilu lasaabici faraha in la dhexgeliyo oo saas loo sameeyo sunnooyinka fiican bay iyaduna ka mid tahay iyo dhegaha oo la masaxo oo si gooni ah loo masaxo iyaga oo lala yimaado iyadana waa ka mid wayaan waxaa kula mid ah sunnada fiican waxaa ka mid ah in ma garanaysayay tartiibka loo wado la muwaaleeyo taas waa waajibaadkii baan soo sheegnay waxaa ka mid ah oo sunnooyinka ay tahay in midigta laga bilaabo oo oo bixidana lagu xujiyo waa saas oo kale waa in la sameeyo waxyaala waxaa jira marka aan la ogolayn oo macnaha makruuha oo aan la ogolayn in qofku uu la yimaado marka uu waxa macnaha uu weysada uu sameynayo waxyaala makruuha oo aan la jeclayn ayaa ka mid ah in la sameeyo macnaha aan la ogolayn baa jira in la sameeyo okay ma weysanaynaa weysada marka lagu jiro waxaan soo sheegnay wax waajibaad ah qaarna waa sunan qaarna waa makruuhaad oo lama ogolo waa la karaahiyeystay waa la nacbaystay in la sameeyo yani sax ma aha weeyaan ya marka waxaa ka mid ah aziyaadatu calayha in macnaha xubinkii saddex laga ziyaadiyo maala kale waa weysanaysay gacantaad dhaqaysay ama waxaad dhaqaysay gacanta oo dhan saddex jeer baad dhaqaysay lama ogolo waa karaahiyo in saddex jeer ka badan aada samayso okay saddex jeer ka badan inaad samayso waa karaahiyo weeyaan waxaa kula mid ah oo karaahiye ka mid ah al-israafu fi lmaa-i biyihi aad ku weysaysanaysay inaad ku xadgudubto oo aada biyo badan intaad qaadatid aada shubtid oo ma garanaysaay aada maanta o dhan tuubadii oo furan aad iska waxaysid waa karaahiya maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala ma jeclo in allaha laa yuxibu lmusrifiin dadka ku xadgudba ee ma garanaysayay ku xadgudba ama biyaha ama cuntada ama wax walba ama dharka noocu rab ha noqdee marka lama ogolo yadana waxaa la yihahdo israafka lama ogolo sunnooyinka wanaagsan ee qofku markuu weysaysanaya laga rabo inuu sameeyo waxaa ka mid ah inuu cadaydo siwaak baa ka mid ah macnaa markaa weysaysanaysid sunnooyinka wanaagsan inaad la timaado aada u fiican tahay inaad samayso waxaa ka mid ah cadaygaa ka mid ah marar baa jira marka uu sii noqonayo kugu adkaanayo sunno mu-akada sii noqonayo haddii aada og tahay in aada caday u baahan tahay oo afkaagu uusan aada isleedahay wuu shiirayaa ama uu urayaa oo kale waxaa wanaagsan inaad cadayga la timaado maxaa yeelay qofka waxaa laga rabaa in uu zuuliyo ama uu iska tirtiro ama uu ka baabi'iyo wixii ama ur ah ama wixii lamid a afkiisa uu ka baabi'iyo
gaar ahaan weli markaad ama hurdo ka kacdo oo kale haddaa hurdo ka soo kacdo waxaa fiican inaad cadaytid soo ma waad seexatay waxaa u baahan tahay inaad cadaytid macnaha sunnooyinkaasi waxyaalahaas waxaa ka mid waxaa weeye waxyaalaha loo baahan yahay in la sameeyo xilliyada kale ee soo hadhay ee kale caadiga ana xataa waa iska sunna in mar walba la cadaydo marka waxaa weeye axkaamta muxuu ahaayey wuduuca ama weysada okay cashirkeena maanta intaasaynu kusoo gabagabanaynaa haddii aysan jirin wax su-aala ah haddaad qabtaan waan wax yar baan ku daraynaa insha allahu tacaala su-aal wax su-aala ma jirto soo okay insha allahu tacaala marka waxaynu gabagabanaynaa barnaamijkeena maanta aan ugu talagalnay weysada iyo guud ahaan axkaamta salaada gaar ahaana weysada maanta ku saabsanaa barnaamijka waxaad kala socotaan tv-ga qaranka soomaaliyeed intaynu mar dambe kulmayno waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا SNTV